waawa asxaabtayda iga raali noqda fiidiyoga hore aan duub iga raali noqda telefoon iga soo dhex galay codkii hore aan duubay kii hore aan live-ka hore aan soo galay waxaa xumaaday codka baa xumaaday xamse xadaari abwaankayga soo dhawo walaalkay xamse walaalkay thank you mar haddaad ducaysani dhahday kole aabahay hoodii toonna ima habaarine thank you walaalkay aada umahadsan tahay anyway codkii hore baa xumaaday waxaan ahay qofaan weligeed live soo gelin baan ahay iga raali noqdo jerry cambo allayaa cisig walaalkii soo dhawow soo dhawaada mar kale asxaabta horta ma lay maqlayaa I'm trying to codkayga kor u qaado sababtoo tahay kii hore baa iga xumaaday codkii hore iga xumaaday so ma lay maqlaa horta akram thank you walaalkay sharafaa leedahay thank you walaalkay maqal ma jiraa horta maqal hadduu jiro haadhaha si aan hadalki sidii kii hore camal uusan iiga noqon soo ii sheegay ninkaba maanta live-kay ka shidan tahay of course live-ka bay ka shidan tahay maanta oo saan idiin dhahayba horay kolle markan iskuma keen dambeynino isku soo noqonanaa mar kasta insha allah ma ihi aniga ma ihi dadka hadalka ku fiican oo live-ka soo gala oo sheekeeya I'm trying my best inaan idiin sheekeeyo waqti idinla qaato hoodo eedo faadumo soo dhawo eedada macaan cabdiweli thank you walaalkeen waa mahadsan tahay okay maqal wuu jiraa so maaha waxaan u malaynayaa inaan iska sheekeynayaan u malaynayaa so ii sheega maqal hadduu jiro codkana koraa u qaadaa okay thank you guys waa mahadsantihiin thank you waa mahadsantihiin maxaa la dhahayay waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo dhammaan intii igu soo dhaweysay magaalada Nairobi waan ku suganahay hadda waan ku suganahay iminka dhammaan fanaaniintayda asxaabtayda iyo khaaska ah asxaabtayda iyo khaaska ah shacabkayga dhammaan intii soo dhaweeyey airportka isoo taagay isukaysoo taxallujiyey inay waqti fiican aan wada qaadano maxaa la dhahayay dhammaan aad baan ugu mahad celinayaa madaxaad ii saarantihiin sharafaad leedihiin thank you so much guys ii noolaada soomaali meel kasta joogaan ha noolaadeen dad sharaf la weeye oo qaayo badan oo dadkooda jecel marka thank you so much guys mar kale iyo mar labaadba walaalo ani sheeko iskuma fiicni kow dheh laakiin bal haye xamse waxaad jeceshahay of course walaalkay hees iyo labo iyo ka badanba waa leedahay waana isku leenahay marka thank you guys mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waan idiin mahad celinaya waxaan idin leeyahay shiro jooga thank you abaal weynaa idinka hayaas aad igu soo dhaweyseen magaalada kolley marti ma ihi haddoo 24 hours ka badan waa joogay martidiina waa ka baxay so thank you guys
insha allah waan soo gudbayaa waddankeenii hooyana soo gudbayaa haddii ilaaha idmo xamse heesta qadra daahirtee waaye xusuusi heeso badan oo qadra daahira kula way jiraan so okay waxaan rabaa sidoo kale inaan ka hadlo heestaydii u dambeysay ee dad badana kulley soo weydiinaya oo dhahaya ereyga maxaa loola jeedaa okay ereyga waxaa loola jeedaa waa ogahay hadalkiis kuma fiicnay laakiin dee walaal wax kasta waa la isku dayaa kulle waan isku dayayaa okay ereyga waxaa loola jeedaa qadar cali thank you walaalkeen thank you waad mahadsantahay ereyga waxaa loola jeedaa you know marka aad rabtid inaad qof wax weydiisid oo waxaa weydiin lahayd ereyga ku gooyo mise kala baqdid mise anyway oo aad dhahdid ereygii aad soo tufweydid ayaa loola jeedaa ereyga horta tuna xaggaasay ka timid dee waa gabadh laki caddee xabiibtii waa inoo laasacnood insha allah waana soo gudbaya haddii ilaaha idmo waan imaanayaa insha allah marka ereyga waa adi waxay ahayd gabadh wiil jecel oo wiilkii dee rabto inay la hadasho markaas hadalkii ku dhigay oo markay dee rabtay inay wax dhahdo entu marka xaggaas bay ka timid so kolley dad badanaa isoo weydiiyey oo ahob inay dee ku qancayaan marka markasta wixii dee laga firsan waayena waa shacabka waa loo falaqeeyaa oo waa loo kolley loo fasiraa so oo idinkaasaa xamse qoraalkaaga ma arko so kolley adaa soo sheegi doonaa heestaas marka thank you guys waa mahadsantihiin wakaas eentii anaa hadda leh thank you anyways waa mahadsantihiin guys sharaf ku noolaada okay kolley shacabka meeshan ku jira hees ayay leeyihiin hal hees noo qaad marka hees allaale heestaa codsataan insha allah waa laydin qaadayaa reer Nairobi si fiican ay soo dhaweeyeen kolley dadkayga marka dadkayga markasta waan ku aqaanaa wanaaggaas iyo sharaftaas iyo soo dhaweynta fiican marka thank you guys waa mahadsantihiin intii soo dhaweysay intii magaalada degan intii soo taxallujisay thank you okay here's the NN raggaba idilkii kan keegte aragtidiisa hanuun qabay soo ayaantii aynu kulane eebba igu simay xishoodawgii hambad ma noqon ihenen mooye soo dhahdii afka muu gabin ihenen mooye soo jedkii may loobin hen mooye haragiisa ashqaraaray ama kaabay wanasqoobay waa idinkaasaa guys mar haddaad heestaa isku wada raacdeen waa idinkaasaa kolley
intaas inaga badan baan malaynayaa. marka thank you guys, waa mahadsantihiin. kolley insha allah isku soo noqon doonaa haddii la idmo. aada u mahadsantihiin dhammaantiin. thank you and jimco mubaarak as well. jimco wanaagsan baan idin leeyahay mar kale. thank you.